kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu idinka diyaarinay madaxweynihii ugu horeeyay ee Ecuador Gunaya kumuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Ecuador Gunaya shakhsiyad noocee ah ayuu lahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Ecuador Gunaya miyuu ahaa madaxweyne waalan mise madaxweynihii nolosha su'aalahaasi oo dhamme waxaynu ugu jawaabi doonaan barnaamijkan haddii aabaha awoodiisa la ogolaado mar kale ku soo dhawaada saaxiibayaal fadlan subscribe saar channelkeena si aad u hesho xogaha maalinlaha ee aynu soo gelino sidoo kale gambaleelka dhanka midig kaaga soo baxayo guji waxa si dhaqso u heli doontaa goortan soo gelino barnaamijyadan aynu ku soo daabacno bogenan Ecuador Gunaya waa dalka kaliya ee qaaradda Afrika looga hadlo luqadda Isbaanish waxaana xurriyadiisii uu ka qaatay dalka Spain sanadii 1968 Francisco Maciasa Nkuema ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Ecuador Gunaya kaasi oo loo garan ogaa Hitlerkii Afrika laakiin isagu isku yaqiin madaxweynihii nolosha iyo mucjisada kaliya ee Ecuador Gunaya u dhalatay Francisco waxa uu ka dhashay qoys saaxiriin ah aabihii waxa lagu eedeeyay in uu dilay walaalkii waxaana uu daawanayay aabihii oo feer lagu dilayo kadib xukun uu maamulkii Isbaanishku ku riday aabihii todobaad kadibna hooyadii ayaa isdeshay halkaasi waxa agoon ku noqday isaga iyo 9 walaalihiisa ah Francisco waxa uu 3 jeer ku dhacay imtixaankii uu u fariistay markii dambana waxa uu duq ka noqday magaalada Managoma ee maamulkii gumaysiga Isbaanishka mar dambana waxa uu xubin ka noqday baarlamaanka iyadoo sanadii 1964 loo magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladii ku meel gaarka ahayd ugu dambeynna sanadii 1968 xurnimadii dalkaasi ayaa u noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Ecuador Gunaya markii uu xukunka la wareegay madaxweyne Francisco waxa uu ku dhawaaqay in uu dalka ka sifeeyo dadkii gumaysan jiray Isbaanishka Francisco waxa uu laan jiray dadka ka soo horjeeda xukunkiisa maalin ay ahayd ciidda Christmaska ee gaalada ayaa Francisco waxa uu garoonka kubadda cagta ku casuumay 150 ka mid ah mucaaradka kadibna amray in dhammaantood halkaasi lagu toogto baarlamaankii dalka 3 meelood 2 meel waa uu laayay ilaa 10 wasiirna waa uu dilay sidoo kale waxa uu dilay gudoomiyihii bangiga dhexe intaasi kadibna isaga ayaa gurigiisa ka maamuli jiray hantida qaranka Maciasa Nkuema maamulkiisii waxa uu kumanaan shacabkiisa ah ku qasbay in ay dalka ka cararaan inkastoo uu laan jiray dadka isku daya in ay dalka ka baxaan dalka oo ah jasiirado yaryar wadada kaliya ee loo mar waxa uu ku rakibay bambooyin sidoo kalena waxa uu burburiyay doomihii si aan looga baxsan dalka xitaa waxa uu dalka ka mamnuucay in kabaha dadku isticmaalaan mararka qaarna waxa uu dadka amray in aysan ka soo bixin guryahooda waxa uu si gaar ah u bartilmaamaysan jiray dadka aqoon-yahanka iyo indheergaradka wadankaasi 3 meelood 1 meel oo ka mid ah shacabkii dalkaasi waa laayay dalkii si kasta oo ay kaga carari karaan ayay sameeyeen waxa uu dadka u laayay ka mid ahaa qaraabadiisii oo ay ku jirtay xaaskiisa dhamaadkii xukunkiisa dadkii aqoonta lahaa waxa ay noqdeen wax uu laayay iyo wax dalka isaga carara dalkana waxa ku dhacay maskax guur aanu wali ka soo kabsan iyadoo dhaqaatiirta ay sheegeen in Francisco qabay xanuunka dhimirka oo u walna sanadkii 1979 Tuadero Obiang oo adeer u ahaa ayaa inqilaabay xukunkiisii kana mid ahaa dadka uu eheladiisii ka laayay Francisco ugu dambeyntiina Francisco waxa lagu xukumay dil toogasho ah isla sanadkaas xilli aroor hore ah ayaa la toogtay isaga iyo 6 eedeysana ah xabsi ku yaal caasimadda ciidamada dilka fuliyay waxa laga soo kireysay dalka Morocco iyada oo laga baqayay sixirka qoyskiisu yaqaaneen waxaana Ecuador Gunaya wali xukuma mid ka mid ah kaligiisaliyaasha ugu xun adduunka waana wiilkii uu adeer ku ahaa Francisco waxa halkaasi nooga eeg barnaamijkii gaarka ah ee aynu ka diyaarinay madaxweynihii Ecuador Gunaya adama wuxuu ahaa madaxweyne waalan mise waxa uu ahaa madaxweynihii nolosha tan intii aynu ku kulmi doona barnaamij noocan oo kale ah waxaynu idinka tageynaa sida iyo nabadgelyo